awdal tabanaya waa wax jira cidna laga qarin maayo cid kastaana way ogtahay mar walbana waan aaminsanahay inay ree awdal wax ka baqayeen marka noqdo ugu faraxsano min ma ihi maanta ka walwalsan waxa xilka looga qaaday ama jacayl haddii maanta waqtigooda kolku dhamaado xisbigayga kulmiye hadday cid kaloo na bedeshaayay tabaadana runtii ka aamusmayno taa aan maanta ka hadlayay inay ree awdal wax ka baqayeen markasta habeen iyo maalin anigu waan aaminsanahay waan aaminsanaa بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ilaahay baa mahad leh marka labaad waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo runtii xilka ay magacaabay 11 bishii shanaad 2023 shalay oo ay taariikhdu ahayd 14 bishii 11aad xilkiga qaaday aad baan ugu mahad celinayaa madaxweynaha shalayna isaga xilka ay magacaabay oo qalinkiisa ku yimid maantana isaga xilkiga qaaday oo qalinkiisa kaga tagay aad baan ugu mahad celinayaa waxa kale oo aad iyo aad ugu mahad celinayaa shacabka ama bulshooyinka Soomaaliland meel kasta ay joogaan oo mahad celinayaa taageeradii iyo dareenkii ay muujiyeen iyo karaamadii iyo sharaftii ay markii hore igu soo dhaweeyeen maantana igu soo dhaweynayaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa anigu Cabdi Cismaan u baanahay Cabdi Cismaanna waan ahaan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo qof isbedelaya ma anigu bulshada waxaan u sheegayaa gobolka Awdal iyo dhammaanba cid kasta oo magacayga iyo muuqayga garanaysaba anigu inaan Cabdi Cismaan ahaana doono haddii Ilaahay yiraahdo wax iska kay bedelayayna awniga jirin kii ataqaaneen ee bulshadiisa u shaqeynayay isagoo aan xildhibaan golo deegaan noqon isagoo xildhibaana isagoo maxay leeyahay xildhibaannimadii ka tagay isagoo wasiira intaba bulshada si midaan ugu soo shaqeynayay runtii maantana waxaan aaminsanahay sidii si ka badan inaan ugu shaqeyn doono ree awdalna waxaan leeyahay hal istajiyo wax walba way hagaagayaan waddanka inaga dhisanay horumarkiisa aynu ka shaqeynaynay imikana horumarkiisu maynu ka shaqeynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigoo maanta oo hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka shaqeynaynay danihii gobolka Awdal iyo wixii ay tabanayeen iyo horumarkiisa in haddana madaxweynuhu xilkiisa iga qaaday aad baan anigu ugu faraxsanahay runtii waana ku bogaadinayaa xilka qaadistana aad baan ugu faraxsanahay in laga qaado xilka maadaama aan danihii gobolka Awdal ee anigu aan ka soo jeeday aan ka shaqeynay in xilka laga qaadana aad baan ugu faraxsanahay nin ma ihi maanta ka walwalsan waxa xilka looga qaaday ama kursi jacayl ama kursiga aad ugu hamuun qabo waxay dadkiisu isagoo wax tabanayaan haddana aad u hamuun qaba inuu ku sii fadhiyo runtii aad iyo aad baan iskala weynahay arrimaha qaarkood waana ku faraxsanahay ma sha Allah waana noo hambalyeynaya madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaad waana la shaqeyn doonaa cid kasta oo gobolka ka soo jeeda oo xilka loo magacaabay iyo cidaan ka soo jeedin dhammaan cid kasta Soomaaliland oo xil haysana waan la shaqeyn doonaa haddii maanta waqtigooda kolku dhamaado xisbigayga kulmiye hadday cid kaloo na bedeshaayay tabaadana runtii ka aamusmayno taa aan maanta ka hadlayay inay ree awdal wax ka maqayeen markasta habeen iyo maalin anigu waan aaminsanahay waan aaminsanaa doono aad iyo aad waxaan ugu boorinayaa dadweynaha iyo shacabkayga qiimaha faraha badan leh mooga dajiyaan markastana amnigiina inaad ilaashataan adduunyada amniga ugu qiimo badan haddii amni la waayo nololi jiri mayso haddii amni la waayo salaad la tagi maayo waxna la baran maayo quruxda iyo wanaaga iyo sharaftuna amnigay ku jirtaa anigu shalay kolkaan idin la joogay amnigan ka shaqeynayay maanta kolkaan idin imaadana amnigan ka shaqeynayaa berrina waan ka shaqeyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo horumarka iyo amniga cidna loo daba fadhiisanayo waynu ka shaqeynaynaa waxaana leeyahay ummadda ha loo shaqeeyo mar kastana
dhibaatada ama waxay ree awdal tabanayaan waa wax jira cidna laga qarin maayo cid kastaana way og tahay anna waan ognahay mar walbana waan aaminsanahay inay ree awdal wax ka maqan yihiin waxay ka maqnaa shalay annaga oo guddidii uu madaxweyne ku-xigeenku hogaaminayay baa arrinkeeda ku jirnay wayna ku jiri doonaan intii aniga iga dambaysa hadduu ilaahay yidhaahdo annaguna wixii kolbaa la qaban karna waa la qabanaynaa cod dheer iyo cod gaabanna waan ku hadlaynaa waxaan leeyahay ree awdal ha la isdejiyo wax dhibaatayii ma jiraan waddanku waa waddankeenii somalilan innagaa dhisanay runtii waanan aaminsanahay somalilandnimada anigu waan aaminsanahay marka waxaan leeyahay aada iyo aad buu mahadsan yahay madaxweynuhu mar labaad iyo mar saddexaadba xilqaadista uu igu sameeyey waana ku faraxsanahay runtii anigu aad baan ugu faraxsanahay waana ugu mahad celinaya berrina kolkaan maanta xilka ka tegana dee kuwa tuuraha intay u baxaan wixii ay qarinayeen sheegaya mey kolkay xilka hayeen waxay qarinayeen sheegi doonana mey marka aada iyo aad baad madaxweynuhu mahadsan tahay